sheegayaan dhalinyarada cuslaatay. waa markii igu horeysay waxaana iga dhacay 22 kiilo. nolosha waan ku raaxaysanayaa, waxaan dareemayaa in aan guul gaadhay. iisug waa ku kaas. jirkayga ayuu dhisay, waan caatoobay, balse weli kubadda kuma fiicni. ma iska baashaalba mise Ronaldaha xiga? taasi muhiimad kama aha halkan. waxa la doonaya ayaa ah in culayska la dhimo iyo sidoo kale in ciyaarta goolal lagu dhaliyo si kooxuhu ay u helaan goolal dheeraad ah oo lagu siinayo miisaanka ay wada jirka u dhimeen. waxaan run ahaantii dhab ahaantii ku rafaaday inaan dhimo miisaankayga sannado badan. waxaan ku biiray xarumaha ganacsiga ee miisaan dhimista. waxaa cad badi dadka goobaha si aada inay yihiin haween, waxayna i dareensiisay inay taasi ahayn hawshaydii. waxaa jiray hadallo badan oo ahaa in laysku caateeyo bikiiniga, marka sida dhabta ah waxay ahayd un helitaanka wax ku habboon ragga, wax uun ka caawiya inay u shaqayso dhimista cayilka. middaas way shaqaysay. markii ugu horraysay oo aan bilownay waxaan lahayn qol aad u yar oo raggu isku cabbiraan, taasi oo markii dambe kooxda oo dhan ay wada yimaadeen iyagoo qolka buuxiyey. maxaa yeelay way istaageerayeen iyagoo is ammaanayay, waxayna doonayeen in qof kasta uu si wanaagsan sameeyo. tan iyo bishii Janaayo, Ross waxa ka dhacay 28.5 kiilo. waxa uuna ogaaday in aanay jirin qaab ragga asaga oo kala ah ay ku heli karaan inay gaaraan waxa ay rabaan oo ah in ay culayska iska ridaan. waxaad fiirinaysaa caafimaadka raggaada. waxaan u baahannahay in aan awood u yeelanno inaan culays iska ridno si aan dhib lahayn. haddii ay tahay koox wiilal ah oo ciyaar ahaan u samaynayana taasi aad iyo aad bay u fiican tahay. ayada oo kiilooyinka ka dhacaya qofka ay caddayn u tahay in wax kasta oo kuu shaqeeya ay tahay midda ugu wanaagsan ee aad kula dagaalami karta cayilka.